markaan soo gaabiyo ingiriiska qofka ku nool waxa weeyaan waa ruqya jacfar waa xaaskayga iyo waxaan kaloo salaamayaa gabadhayda hooyadeed deeqo iyo waxaan salaamayaa gabadhayda hooyadeed kale nasra ama nasrina waxaan salaamayaa hooyooyinka dhintay allah marka qofkii dhintay iyo qofkii nool ba ilaahay naxariistiisa u baahan marka waxaan salaamayaa wariyaasha dhan oo ku nool dalkan Somaliland aad kamid tahay kow inta kale way naga maqlayaan xaggaas naga gaarsiin okay wariyaasha iyo waxaan salaamayaa kale obratoriyaasha farsamada idaacadda TV-ga iyo farsamada dhageysiga markaan ila saaxiibkay aan idaalaan soo qaato xasan jaamac saaxiibkay koobaad weeye wuxuu xasuusiyay heeso on mar hore qaaday ayuu wiiraniyo heeso war heeso dib aan u nooleynaya si waa horta isagana hadda kolle si gaar ah u salaamaya maxaa loo jiraa mar heesta waxaa la dhihi jiray goortaan ladnaa geniyaadka jeebka iyo googo ku sidan jiray ee galaba tiiroon gabdhahana ka doorbiday suurtaad gaasiray hooy geedkaan fadhiistaba gurigeedii taagneed gu ilweeli waagaa garabkayga qabtay kuma guuldarin ama gudo aanba gudo ma qaadin marka hal abuur heesta ma hay heestaas ninka sameeyey waa dhintay allah naxariisto waxaa ereyada waxaa sameeyey maxamuud dukaala sameeyey laakiin music anaa sameeyey ulajeedayna ku socotay niman saaxiibnahay xoogaa shaqada markii laga eriyey oo dhaqaalihiisa kala goya asiga xaasku isku xubaa markaasaan baalkaan daynaa si cumar qaadis dulsa ahayd markaad qaadis waxaan lahaa hadda baalkeena faraha iguma jiro laakiin codkeedii baan haynaa goortaan ladnaaye geniyaadka jeefkiyo gogoa ku sidan jiray ee galaba tiiroon gabdhahana ka doorbiday gaadada ku wadan jiray sawtaad gaasiray hooy geedka fadhiistaba guradayda taagni go-i weyday sawtaad garabkayga qaba tiri kuma buldaraynine amba godob ma qaadine goblaanta la haway markaad godiigu tuurtaa maalkaygi gaabtaa gacantaydi marataad iga goosanaysaa iga goosanaysaa iga goosanaysaa waa si cumar caanka ku hayay inta badan waayaha dumarka ka hadli jiray heesahaas ayaan dib aan garanaya waa tahay marka waxa weeyaan waxyaabaha aad argayso tuli bay ka mid tahay intii markii hadda heeso badan aan helay inaan dib u nooleeyo weliba waxaan leeyahay raadiyaha qarankana amaanaya waa tahay waayo waxay hayaan inta waxaan imid runtii iyadoo nin hindiya fadal tumaya waatay ninka raaw gaadhaan maqli jiray fadal tumaya way heesii Soomaali waxaa ninkan af Soomaali ma yaqaan laakiin muusiga heesii lagu yaqaan waatay heesii Soomaali uu tumaya marka hargeyso waxay ku ekad idaacadda hadda markii la aado waxay iska ahayd hadda meeshii idaacadda dhexdeeda ku jirta waatay idaacadda meeshii u guuri lahaa guuri aad iyo dhexdeeda degantahay magaalada bartkeeda degantahay magaalada buur ilaa wallahi markaas uu gadaal wax ma jiro waatay waxaan imid fanaaniin kale oo yani runtii hadda aan wada xasuusan karay nin kalan tumayo oo hadda carab ahaa waxaan imid cali dheero محمد سعيد قرون شري رجع شيء عارف فيروز نيل عارف فيروز في سرور تمين هاي عبد الحمد لله نيل ان شاء الله ها waxaan ugu imid ismaaciil yare انت ضوّرتنا الله نحرسك dadkii waa dhinteen kulli Allah naxariisto way marka kolkaas anaga waa imaan jirnay riwaayada dhigi jirnay iska dhigi jirnay weli waxaan xasuustaa shaneemo ku taal meeshan nasra silimo golo jiray ها waxay ku taala meesha gacan libax leedahay markii hadda laga dhig hadda meel ku taala ma waa waa magaalada hadda waa ta meeshaas waxa ku tiri shaneemadaas waa ka dhigi jiray waxa ay keenay koob meeshan ay keenay
الله ونحرسته أبوان عبد الله عبد الشوري وات جعفر هو ها اد 16 لو قال رواي واي نيكي ورجل الروم قال لكم هو صوب الا بالكرفته دميركيga orod dameerkayga socodkiisa orod badan ah leeyahay waa dameer sariir burburtada waxsaas ya waad marka waxaan dhahay riwaayada markaan keeno 10 habeenan dhigi jiray waad dadku filim ma jeclayn TV ma jeclayn waxaan la jeclayn hataa filimaadkan kale oo dadka iska u maartay dadka waad isku dira hadda waxaa filimaad kala socda oo khatar ah oo hataa qaar dadkii marmar cuntada ka gubata hataa marka waagaas waxaa la caawa filimka ugu fiican hinda daa soo dejiso riwaayad baan ugu helnaa riwaayadda laga marra waxd meesha ugu weyn wax laga dhigayna beerta xorriyadda beerta xorriyadda markaan kusoo daalno oo 3 habeen 4 habeen la dhigo haddana shanamada loo soo naqdi dadka xaafadda haddana soo geli jiray adiga riwaayad la arko sidaas yahay markii dambe ده waxaan galay kooxooyinkan waaweyn aadiyad de waxay ahayd daba qofsi waxa marka riwaayadaha inta aan keenay oo caanka ah waxa kamid ah qabriga jacaylka xuud baa laqa jacaylka waday wacad dhada robna gooyda biyo saratay waa la sugayaa habliyo hadmaad guursanaysan riwaayadu waxa jiray badan ciidanek oo markaan dambe xogaa anaga nafteen ma la bartay markaas waagaas la fanaaniin baa naga horeysay aadiyad waa naga horeysay way laakiin markii dambe de waa cirkad martay ninkii dadaal xaaj Abbas waa barwada ku sameeyay interview marka Cumar waqtigaas musician buu ahaa raga wax tumay riwaadaha caanka ah ee uu sheegay inta badan gitaarka tumay la daba taagnaa marka uu u baahdo Cumar kelidii camiran jiray lixas markaan qaaday riwaayada la bilaaway la ilaaha dadka isma dhaqaajin muwaata lixdaas hees markaan qaaday dadkan ku celina fadhiga marra la caada loo sinaysan hees been soo saaray way hay ku daay wadad marka soo ma qalanta ashabaab na fihi wadaad marka ayagoo na sugayaan leeyahay haddana riwaayadii baa noo bilaabanayso laakiin hal waxaan qabnay oo khatar ah walaala hanuunsan markii bilaabanayso waaya dadku ay xashada madkhana jooji jireen dadku waa danger waxa jira dad aan ticket soo goosanay way oga ha shid way marka inaad shid iska ilaalisana haysto wax ka dhaxay marka ay noqoto image buuxsan intaan kale waa soo danger aadiyad walaala hanuunsan inta way heestaas markii la bilaabo ogay riwaayadeedii nafina dhagax markaas aadiyad waa danger adiga an riwaayad 10 habeen la dhigaan arkay 20 habeen waa si yani shacbiyada waliba markii tiyaatarka la yimid oo la dhisay 10 habeen waa bixina boorman tagay Dahabshiil gabiil boorman waa soo noqon haddana riwaayad kale la bilaabo 10 habeen marra waxd haddana meesha lagu noqonay jeebkiinu waa buuxay oo kala la bilaabay alxaal jeebkiinu aad baa buuxay warna dadka duuliga dhulkaas Sacuudiga tagay waa ka fiicnaan jiray waaye Cumar cabdille Shooli gabagabadii heesa badan baad qaaday heesahaaguna inta badan waxaan caan noqonin malaha hees kasta oo Cumar mutqanaayeen laga tumo ama lagu arko waa la garanaya aduu heesteed u jeclayd gaar yani ku ahayd geelaaga farax badan la sago waxaan ugu jeclaado runtii والله